bilaad ay horeeya waa in ilmaha naaska oo kaliya la siiyo aan wax kale aan loogu darin biyo ahaan iyo caana ahaan iyo subag ahaanba intaas ugu filan naaska in ilmaha la siiyo waa Marwo Nimco Siciid Faarax oo ku guda jirta wacyigelinta muhiimadda ay u leedahay naasnuujintu dhallaanka taasi oo goor kasta ka wacyigelisa haweenka ku nool deegaanka Sheekh Yuusuf ee duleedka magaalada Boorama iyadoona taageero ka helaysa hay'adda HBA oo gacanta ku haysa mashruuca Shine ee daryeelka hooyada iyo dhallaanka taasi oo lagu guda jiro xuska toddobaadka naasnuujinta adduunka ayaa waxa ay hay'adda HBA xooga saartay sidii loo gaarsiin lahaa bulshada faa'iidada ay naasnuujintu u leedahay ubadka yaryar Marwo Nimco Siciid Faarax oo horeenka warbixisay wacyigelintani ayaa waxay tiri arinta caafimaadka waxa naga caawisa hay'adda HBA oo maxay heedaanay naga caawisa marka aniga oo mar kastaba wacyigelinta sameeya oo shaqadaydu tahayba wacyigelinta inaan sameeyo ay tahay maantana waxaan ku jirnaa toddobaadkii naasnuujinka hooyada sidina waxaan ka wacyigelin imika kala hadlay naasnuujinta hooyada oo in loo joogteeyo ubadka hay difaac u tahay iyo caafimaadka hooyada maskaxaan iyo jirahaanba sidoo kale madaxa xarumaha caafimaadka aasaasiga ah ee Shifo ee magaalada Boorama Ugaasa Cabdi Cilmi ayaa sharaxday faa'iidada ay naasnuujintu u leedahay hooyada marka anigoo maanta ka hadlaya faa'iidada ay leedahay naasnuujintu hooyada waxay faa'iido u leedahay in maxay hadana dhibaatadii ay soo martay in dhiig joojin ay ka helayso oo makaankeegu markaaba uu ka caawinayo inuu istuubo dhiig joojin iyadoo ka helaysa haddana waxay ka helaysaa kala dheeraynta dhalmada ayay ka helaysaa faa'iido badan ayaa hooyada ugu jirta iyadoo ka dareemaysa ilmaheega marka ay naaska siinayso oo u soo dhawaado kalgacal ay ku ilowday dhibaatadii ay soo martoo dhan inta kadib Yusur Kaamil Cawaale oo ah maamulaha xarunta hooyada iyo dhallaanka Qoorgaab ee magaalada Boorama ayaa ka warbixisay doorka ay naasnuujintu ka qaadato korniinka carruurta naasku wuxuu daweeyaa korniinka ilmaha kalgacaylka caafimaadka ilmahana waxa ugu jira inuu ku koro caanaha hooyada Ilaahay ugu tala galay oo aan loo bilaabin 6 bilood ka horeen in wax cunto la siiyo way cuntada iyo sonkortu waxa ay dib u keentaa shubanka midhicirada ilmaha diyaar u hayna sonkor shiidaan intaas oo dhan buu ka daweeyaa naasku talaal baa ku jira caaniyo diiran baa ku jira borotiinadii baa ku jira fiitamiinada ku jira wax kasta oo qofka bini'aadamku uu ka heli karo ifka oo Ilaahay ugu diyaariyay naaska ayaa ku jira Jaamac Maxamed Ahmed madaxa qaybta nafaqeynta carruurta isbitaalka weyn ee magaalada Boorama oo hadalka qaatay ayaa faahfaahin ka bixiyay naasnuujinta carruurta yaryar bulshada ama community waxa la yiraahdaa faa'iidada ugu jirta naasnuujinta aynu eegno waa koowe reerka caanahan hooyada reerkii dhaqaale kaga baxayo caanahan hooyadu uma baahna biyo lagu daro marar badan carruurta waxa infection ka u keena biyaha caanaha lagu qasayo oo aan nadiif ahayn ayaa infectionada u keena waxa u keena inuu afkaba ay ka gubtaan ama dhibaatooyin kale ay dareemaan in biyo kulul caanaha lagu qaso markaaba ilmaha lagu qabto waxa kale oo khasaare ilmaha ugu filan in masaasad caag ka samaysan marka loogu shubo wax kulul inuu caagii ku milmayo hadhow kaliyihiisa saameyn ku yeelanaya ugu dambeyn Dr. Maryan Cabdilaahi Daahir oo ka socotay hay'adda HBA ayaa tilmaamtay doorka ay ka qaadanayaan toddobaadka naasnuujinta adduunka waxa aan halkan kaga qayb galaynaa toddobaadka naasnuujinta oo aanu anagu mashruuc ahaan ama mashruuca Shine Supply ee ku jira xarumaha caafimaadka ee gobolka Awdal iyo Salal aanu maxaa la yiraahdaa ka caawinaa in ay hooyadu hesho counseling ama advice wanaagsan iyo lagula taliyo goor kasta inay ama marka uurka leedahay laga soo bilaabo oo marka ugu horeysay timaada lagala hadlo naasnuujinta wanaageeda kadibna marka ay ku umushana lagu toobaro ama la tuso marka toddobaadkan anagu waxaan kaga qayb galaynaa in aanu xoojino hawshii hore ka wadnay health centerada oo ahayd ama xanaanooyinka hooyada lagula tacaalo ama lagula hadlo ama lagu daweeyo oo ay tahay naasnuujintu inuu yahay aasaaska nolosha ilmaha waxaanu sameynaa kale nutrition baan bixinaa ama nafaqo haddii si wanaagsan carruurta loo samayn lahaa ama ay community ama hooyooyinku ay naasnuujin saxa ka dhici lahaa nafaqa darradu aad bay u yaraan lahayd Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Somaliland magaalada Boorama